بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامجك نصر آدم عمر يعني بو إن السعودسينا يا حنان إبراهيم إذاعة حرية waxaan kala dhinacayga fadhiyo waa Faysal Karatay oo meesha ka marnayn oo aad bulshada ugu adeega oo mushaaxa meel kasta dunida caalamka ka taga dhibanahana aad u caawiya Nasro waa gabar da'yar oo hadda ku sugan caasimadda dalka Kenya ee Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii Nasro waxay ka soo timid magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Nasro gabadhaas saxaafadda in badan ayay ku guda jirtay taasoo dhibaatooyin caqabada adag ay kala kulantay marka waxaan ku soo dhaweynayaa Nasra Aadan Umar oo dhibaatadeeda aad iyo aad uga naxnay oo anigayga qaas ahaan aan aad uga qiirooday Nasra ku soo dhawow barnaamijka asantahay xanaan abaayo wad mahadsantahay geeska midib Faysal Karatay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed magaceygana Nasra Aadan Umar waxaan ku suganahay waddanka Kenya waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaan ka mid ahay warbaahinta guddiga oo magaalada Muqdisho ka howlgali jirtay kooxaha dhaqaale al-shabaab ayaa waxay ugu dhigteen xabado 8 xabado gaaraya oo jirkeyga ilaa hadda cadeem ay u yihiin xabad ayaa caloosha iga jirto xaaladeeda xaalad xun waaye familkeyga inta ima joogaan hooyaday aabaheyga ma joogaan maamo islaamiyada la joogtaa habeen walbo waa la soo hanjabaa waa la soo wacaa text message aydan waa la soo isticmaalaa Nairobi amni aan ku haysto malahan habeen ka dambeeyay xaaladeedu way ka sii daraysaa feereyga dhiig ayaa ka tufaaya caloosheeda xabada ku taagan marka dambeys way sii dhaqaaqaysaa meel xun iga sii tagaysaa isbitaal ma aadi karo codkeyga sa ujeedin xitaa daciif iga yahay oo ma hadli karo naaska geeskiisa oo midig waa iga dhacday oo ayadana way iga gashay ka baxday gacanteedan laba xaba iga dhacay sa ujeedaan naafa iga tahay tan kala hal xaba iga dhacday wadnahayga bas waa wax iga gaarsiin xabada inta kale xubnahayga kamid oo dhan waa iga dhacday beelkayga xataa cada iska maqan inta badan dhaqaatiis xataa waxyaalaha macaan xataa waa iga ilaaliyaan oo beelkayga cada maqan oo xabada iga jartay codkaygan sa ujeedeen meeshaan dhuntaan ayadan xabada iga dhacday jeegada iga dhacday madaxa tin ma shalaysan karo ma qubeysan karo in qof iyo qubeeyo ma ahane ani wax aan sameeysan karo maanta isdheey karo waa sameeysan kartaa ma laha waa la qubeeyaa cuntada mushaali amal waxyaalahaas kale taad sikasiya oo qof waa dareem kartaa qof u joogo qof ka naxay adduunkaas inuu si jirin maamadan si kay caawinaysa intay karaamkeeda ayada gabadheeda guriga joogta ay qubeyso dharka iyo waxayso dharka iyo geliso tintana isha la Soomaali qaarkood waxta tinta waan iska xalay waa iska jaraa oo tinta dhulka iska dhiga xabada iga dhacday wax yar umadu qaadan karay kale Nasra dhibaatadeeda farakama qodna ee cabashada ay aad iyo aad u soo jirkeedana xabadaha ku yaalana kale dicid hadda ma arkayso laakiin waxa geeskeena dhinaca fadhiya waa Faysal Karatay oo dhibaatooyinka bulshada ama ka dahnayn bal ku soo dhawow Faysal بسم الله الرحمن الرحيم waxaa labadeeda gees fadhiyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed oo kamid ah waa Xanaan iyo Nasro maanta barnaamijkan halkan waxaan uga hadlaynaa dhibaatada gabadhan Soomaaliyeed oo dhibaato gaartay physical psychological iyo macnaha iyo mental ahaan labadaba saddexdaba gabadhan waxaa gaaray dhibaato maskaxi ah dhibaato jirkeeda ah iyo dhibaato macnaha isha nolosheeda ah soo jeedin gabadhan waxaa lagu dhiftay 8 xabadood oo jirkeeda ku dhaceen 8daas xabadood waxay noo sheegtay inay ku dhifteen al-shabaab waxay noo sheegtay saadir maqlayseen in aynan habeenkii seexan karin baqdin daraadeed xanuun har iyo habeen waddankan waxay joogtaa Nairobi waxay u imaataa caafimaad soo noo sheegtay wax family meesha ma joogo ma jirto aabbo ma joogo hooyo ma joogto yaa la noo sheegay maama islaamiyada ama iskii caawiso marka qaarkood xataa waxay ii awoodin xataa aajiriis isiin karin laakiin gurigeeda iskaga noolaadaa xanuunsado waxa laga yaabaa kiniini iyo waxaas in ay soo kato ma wax kale ay ugu awoodo ma lahan marka maqlaysiin waxa la noo sheegay maamo Soomaaliyeed macnaha Soomaali ahaan uga caawinayso waddankan Kenya dhibaatada haysata iyo problemka haysta si ay uga caawiso marka maxaad ka codsanaysaa mujtamaca Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in aad ii caawiyaan qof familkiis la joogo ehelkiis la joogo qof la joogo waa dareemi karaan marka ay gabar ay tahay anigana gacan ma qaadi karo gacanteeda naafa iga tahay caloosha xabada iga jirto saudadin afkeyga qaraacan yahay dhunta biima marsin karo codkeeda waa hoos ay daciif yahay
wax aan cuni karo malahan ilaa caawiyo ayaan u baahanahay. marka saa noo sheegtay gacantaadna dirta way qaloocan tahay codkaagana aad ay aad u gaaban yahay afkaaga macnaha qalooc ayaa ku jira dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa ku gaarsiiyay xabadii kugu dhaceen xabadii ugu dhaceen agaasiye inteeda kale neefaan qabaa maalinta ka dambeysa ay u kacaysaa qabo uma adkaysan karo qiic uma adkaysan karo wax aan u adkaysan karo habeenkii waan iska ooyaa stress nolosheed meel xun ku sugan tahay neef stress xabad baqdin ayaa gabadhan Soomaaliyeed oo da'da yar iskugu darsameen marka waxaan ku wareejinayaa walaasheen horta Faisal Karatay aad ayaan uga mahadcelinayaa sida weyn uu mar walba barnaamijyadaas oo kale uu u raadiyo uu u soo bandhigo qof walba dhibaatadiisa qarsanaysa media uu u soo daro meel walba caalamka uu ka ogeysiyo caalamka oo dhan dadka joogana kulli Nasra aad ayay u daawanayaan oo dhinacayga fadhida midda kale oo xigta waa Nasra waa gabar da'yar maanta si hadalkeedii hore aan sii tixraaco maamada ay la joogtana waa maama family ah oo iyaduba aan waxba haysanin maanta oo si wacan u caawiso anigaygaas markii aan ugu horeeyay guriga aan tagay Nasro way jiiftay neef ayaa ku kacday maysan hadli karin soo anigii waxaan u sameeyay waan garan waayay inkastoo wiilal ay caawiyeen ay u keeneen baasha yaro neefta qaada kadibna ay soo naaxday markii aan wareystana kulli dhibaatadeedii oo aan maryaha ka rogayna waan eegi kari waayay anigaygaas ayaa eegi waayay oo ilmeeyay gabadhani dharka way iska huwan tahay balse jirkeeda qofkii arkaa maanta waxaan u malaynayaaba inuu meeshu taagan yahay ka dhaqaaqaynin anigu ma arkin qof xabad ku dhacday laakiin waan arkaa dad TV-yada leh xabada ku dhacdo isbitaal baa la geeyay meeshan bay uga baxday gabadhani xabada waxay ka dhigtay shabaq meesha ay gashay iyo meesha ka baxday isma lahan waa meel yar iyo meel weyn jirkeedii dhan wuxuu noqday balaag iyo cadaan oo mixi ah anigayga inay ugu dhacdaaba isku maleeyayba wallaahi aad ayaan uga naxay Nasro taasoo ah ay habeen walba ay ooyaysaa leedahay xagaan fariistaa soo just mar walba la soo wacayaa bay leedahay telefoon hadda daani aan soo waca shakhsi ahaantayda waxay leedahay kuma tahay yaa waaye war anigii waaye Nasro waa Xanaan Ibraahim waan tahaa okay haye waan fiicanahay I'm feeling fine waan roona bay leedahay mar walba cawcitaanka haddii aan ku badinana waxay telefoonka ma qabato waa inaan markaas aan raadiyaa oo gurigeeda ugu tagaa sida xaalad ay dareemayso marxaladaha ay maxay ahayd marayso iyo jawiga banaan uma soo baxdo qofkii la hadlo ama salaamo waxay dareemaysaa in la dilayo kale soo maskaxdeeda baa dhaawac gaaray shaqadeediina markii aan dhaho shaqada saxaafadda ma sii wadan kartaa waxay hadaleed ka dhawsay waan wadan karaa laakiin ima siinayso niyadeyda qalbigeyga ayaa jabay oo mar walba waan wacnaa waan xiriirina waxaan isleenahay qofka hadduu dhaawac soo gaaro waa dareemi karaa waxaan u wacnaa si aysan iskula hadlin waa guriga ay joogto ma aha guri dhalinyaro ay joogaan oo family weyn ma ahan waa dad waaweyn oo sariirtaas iska jiifta cabsi darteeda bal waxaan aan ku wareejinayaa Karatay Xanaan oo warbixin aad iyo aad u qiimo badan inay siisay iyo Nasro oo macnaha idan warbixin fiican inay siisay ولنا حنان وحدر نو شيء يسا إن هذا الكودي بايو وسي أنا قادر تنو هذا الكرن إنه هذا الكرن ما دام يتوقف داوعة لكن وحال لياب له قبلنا الصوماليات قبلنا يير ودب كاسوين سوغاري إن برشة الصوماليات هورنا أصاب النكتة إنه حقيقة بمواين ها تدولة الصومالية ها تبعنا هي أداة قابل السن بنا أدنى ماذا ها تدينا ميديا إن قبلنا إدبات السوغاري سين هذا بدي وقوم نقولينه ومدة الصومالية شعبك الصومالية يقاسة دولة الصومالية وعن كعد سنينا عن كعد سنينا مركلة إنك الدولة ده درتان يعود الآد في عنتها كيف عنتها سيد هوريته وحيالا بدن عابن كرتو إن قبضان دباتي سن أمني كذا عافمات كذا يمسكح هذا الدباتي قرتي ماشي أنا كويس نروح أهله قرابة فاميلا ادعوا ناس أي نجرين هدرنا إلى نوشاي إسلام مقع صوماليات كعاويسو ما أود داوي حكوا كذا تو حبت كذا وشمخ سام مغلس بير كذا قريبنا بحبت جويسي أو نوشك أد كذا وحرينه هي كعنتي هذا الملابي كرتو جير كذا قعمة هذا الملابي كرتو أنا جي إنا متسين كرتو معنا داوي عجاري حبنا هذا جيركا والدباتة يسوق جارسيس تاي معنا هسه نوشك تي على الشباب الدباتة يسوق جارسيين أنا ما قرنايو كم دانير بعد الصحافة كوسب مستقبل وباهن
ilaa heerkaas dhibaatadaas in macnaha nolosheeda loo baabi'iyo loona dilo ani ma garan karo macnaha faa'iidada ama ajirkay ka helaayeen dadka macnaha dhibaatadan gaarsiin gabadhaan yar anyway qofkii macnaha geysteen waxay noo sheegtay inayna macnaha ii sheegay haddeer ay halkan ka sheegi karin oo macnaha gruubkii dileen ay baqanayso marka haddeertaan waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay badbaadisiin gabadhan caafimaadkeeda securitykeeda qof walba ilaahay wuxuu uga soo qaadana shaashada muraayada telefoonka ku qoran in ayada toos ah ula soo xiriirtiin nasro wabillahi tawfiiq